kulankan oo ah mid ay soo qaban qaabeen odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha Cabdalla Sabdi ayaa ka furmay hoolka beerta dalxiiska ee Muqdisho Tourist Village ee degmada Dayniile. Kulanka ayaa ujeedadiisu ahaa iswaafajinta dhaqanka iyo shariicada Islaamka, waxaana ka soo qayb galay kulankan wada tashiga mas'uuliyiin, madaxda dhaqanka, siyaasiyiin, culamaa udiin, ganacsato, erga ka kala socota qaybaha kala duwan ee beelweynta Hawiye, dhalinyaro, haween, barbaarta gaashaaman iyo marti sharaf kale oo munaasabada lagu casuumay. ugu horeyntii nabadoon Xaaji Cali Maxamed Faarax Cali Shanle oo munaasabada daafura ayaa ka hadlay dantii ujeedka laga leeyahay shirka, wuxuuna si qoto dheer uga hadlay faa'iidada laga helayo kadib markii ay bateen isdilka iyo diyada qiimaheedu ka hooseeyo nafta la jaray. wuxuuna carabka ku dhuftay in haatan wixii ka dambeeyay ay dhamaatay in diya la kala qaato balse ay ku dhaqmayaan shariicada Islaamka, kitaabka iyo sunnada nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa oo ahaatee waxaana looga dambeyn doonaa buu yiri fulinta howshaasi gudoomiye Maxamed Cabdi Badane. أنا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إلهي سبحانه وتعالى أيام مهد يا أمان وهي أسقناتي الله سبحانه وتعالى مهد اللي كذب وحان سلام يا بهوينتا مصب كستا أو يكسوق الشيء هو كان كنت مدي وإلهي أمر كيسا كنت مدي وعتان كينا أجيبتي أو أقبى شيء مدنيال إيا مرمون وحان كو سلام يا سلام مدى أقيمها إيا شرفت بدن بقول كي تمن كي أفرت يقران كعدديس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آيات وما هتسنتهين وادن إذن ظلمني وأقبشين وأجيبتين جوجشان حفلة دعاء وحادقي عبد الله سبدي خاصة محمد أبسوغي حسن إيه الكجدود حسنات جوجشان دقي وجيد آليرا وجيد هذا الله دقيان ربا الرماد الصوص عدا مرة دي مجوع عبد الله سبدي جوجش عبد الله سبدي دقي خاصة هدي ليرا وحاد دريم كرتين إن يدد خاص أي كتاد دريمتين إلا أو كلواي مركان أرجني لبعض بدن سنوين بدن لبعضه إيه دب إيه فال حمو إيه إسديل إيه إسنعيب إيه ديا عند ماهين إيه دغر عند ماهين أنا لهين oday laga soo galo cidda ama looga baxo oo wixii ka maqan jariya wixii lagu leeyahayna loogu yimaado markaan weynay waa la wareeray. waxaa shariicada islaam inaan shariicada islaamka ku dhaqanno oon qaadano oon dhaqankeenu shariicada aan waafajino aan haddaan dhibka saasan uga bixi karnaa ummadaha kalena ay nooga daydaan inaan dad dulmina ma rabno inaan dad wax ka sheegno ma rabno inta khilaaf keeni lahayd oo aan nala qaadan arrintaas haba nala dhashaane waa ka leexanay. gogoshaan gogol siyaasadeed ma aha, gogol dulmi ma aha, gogol dad wax looga sheegaya ma aha, waa gogol shariicada islaamka iyo ku dhaqankeeda aan qaadanay ummadaha kalena inay nooga daydaan ayaan rajaynaynaa. waxaan door bidnay in tolka inta noogu yimiday oo ina islaama oo noo yimiday oo dalabkayna aqbalay inay markhaati nooga naqdaan inaan shariicada islaamka aan ku dhaqanno inay markhaati ay nooga naqdaan inaanan dad dulmiyan dadna wax ka sheegin ay markhaati nooga naqdaan inaan wax hore lagu soo qaadin inay markhaati nooga naqdaan. waxaan dooranay hoggaan aan ku kalsoonahay oo Maxamed Absuga Xasan iyo Ilko Guduud Xasan ay iska soo xuleen. hoggaankaasu asagu ma dalban halayga dhiga ma dhihin aniga halaysiiyo ma dhihin aan ka dalbanay أبسوغا حسن محمد أبسوغا حسن إيه الكجدود حسنات دلبدي وانك سوس عد مجلسه وانا بدون محمد جمعالي محمد عبد بدني نانستوا بدني محمد عبد جمعالي بدني ninkaas ayaa Maxamed Absuga Xasan iyo Ilko Guduud Xasan waxay u doorteen inuu hogaamiyo shariicada islaamka oo ku dhaqo oo ku horkaco ummadda aan kula dhaqano wixii ka soo gala beelaha anigu aan tilmaamay asaga loogu yimaado wixii ka maqan asaga oo jiriyo inta la socotay ay jariyaan ummadda dhibka iyo foolxumada iyo dhiigi wiilashaynu say u badbaadaan dumarkaynu say u badbaado odayaashaynu say u badbaadaan culamaa udiinku say u badbaado badinkaynu naar inuu ka badbaado عقيدة وناكسن إنا نكون قانو سداس أيام قان سنة مدنيال يمروين سوى دوادا وحن كم هاد عليه إنا هذا أضنو شرفتين وأقبل كين أدو أجيبتين وحق قبجرتين ما رأيوها قبطو الله سبحانه وتعالى جزاء ولا شهيد كجاء مال جدو أنكم الناس أنكم ورسوا قامني من خيام قارت إلهي كدوغو ترى عذا أن قادن كل رقم إلهي هم قدوغو سداس أيام كسو حريا
waxaa lay idmaday inaan shirka sidaas aan ku furo ujeeddada aan soo gaabiyo dadku saakow soo kallahay welina ma quraacan qadadina waa la dhaafay war badan waa ugu jiraa inaan sii sharaxo waxaa ii diidaya wakhtigaa ii diidaya ujeeddadii intaas waaye wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabadoon maxamed cabdiqaadir xasan oo ku hadlaya magaca beelweynta karanla hawiye ayaa beesha cabdalla sabdi uga mahad celiyay in ay bulshadooda u doorteen ku dhaqanka shareecada islaamka islamarkaana wuxuu soo dhoweeyey nabadoonka beesha u xil saartay hirgelinta ku dhaqanka shareecada islaamka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً إلهي بامهسن مهد على سوكو بكرين انت كون ودسيهاي مهد أولاً إلهي بيوسقناتي مهد على سوكو بكرين إلهي بيوسقناتي وعمر كلابات مهد وسقناتي عدي وناقان كفكرتي قارتي اسوافجسي إن أي هل كان سوق قارسيان مركز الدحاد وحما حسن عد كستو او وقتي ودا بixisay oo ka soo qayb gashay wanaagan walaalaha iyagu ee arkeen nuguna marti qaadeen ayaa ma hasan marka intaas kaga gudbo ilaahay baa mahad oo dhan ilaahay bay u sugnaatay walaalaheena ma hasan anoo ku hadlay marka sidii walaalkii iga horeeyay sheegay afkii beelihii karalle ku hadlaayo dad iga aqli badan iga cilmi badan fadhiyo laakiin cirra li soo doortay waxaan soo dhaweynaynaa wanaaga walaalaheena ay arkeen Cabdalla Sabti ay garteen inay bulshadeenta Soomaaliyeed oo dhan ay ku marti qaadaan ayaa soo dhaweynaynaa waan uga hambalyeynaa jidka wanaagsan ee Ilaahayna siiyay ayagana ay garteen inay qaataan markay isla garteen inay qaataan aan ugu soo dhaweeyna maartay waa uga hambalyeynaa waana ku mahadsan yihiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad bal la qaadanay odaygii ay noo keeneen Cabdalla Sabti waxa la yiraahdaa oday reer baa duufto reer baa keeno laakiin Soomaali oo dhan uu shaqeeyaa odayga lagu magacaabo odayga Cabdalla Sabti laakiin waa oday Soomaaliyeed waa oday sagaal kelmad Soomaaliyeed waa odayga maartay yaani Soomaali oo dhan yaani odayaasha Soomaaliyeed kamid ah qola duubato qola keensato laakiin wuxuu shaqeeyaa in Soomaali oo dhan uu shaqeeyaa in Islaam uu shaqeeyaa marka waxaan leenahay nabadoonka guud ee beesha ay keentay soo dhawow dhaqankii aad ahaan jirtay oo maartay la sii deemideeyay ku soo dhawow dhaqankii walaalaha anagu aan kamidnahay ku soo dhawow gacan furo ku soo dhawow wanaag iyo tawfiiqna Allahna waafajiyo waxaan ku leenahay maxamedow ملك موت كدوك ماغو موليها كامو ديان لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidoo kale nabadoon cabdiqaadir xuseen bacdo oo ku magac dheer wabeen isla markaana kamid ah ergada iyo madaxdii dhaqanka ee madasha ka hadasha ayaa xusay baahida loo qabo ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa mahadda koowaad iska leh mahadda labaad waxaa iska leh nimanka gogoshaan dhigay ee nabadoonka hor keenay ayaa mahadda kale labaad iska leh waxaa midda saddexaad leh dadka inta loo yeeray ka soo qayb gala ayaa midda saddexaad iska leh intaas haddaan ka gudbo boorka iga dambeeya waxa ku qoran qof laguma dulmin waxaana sheegay sheekh faarax cali shallah sheegay cali faarax maxamed cali shallah ayaa sheegay waxaan rabnaa labada beelood oo maxamed yar iyo ilka guduud waxay soo gaareen ay go'aankay soo gaareen shareecada islaamka iyo dhaqanka lees waafajiye ah aniga cabdulqaadir ahaan waa aqbalay nabadoonkana waa aqbalay 500 qof ayaa meeshan joogta waxay isugu yimideen waa nabadoonka madaxiisa saasaana ku aqbalay soo dhawaada lamaan waa salaamatiin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. nabadoon yuusuf maxamed xirsi oo ku magac dheer xaafa ayaa soo dhaweyn iyo hambalyo iskugu daray in nabadoonka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka ee beesha Cabdalla Sabdi ay dooratay marka ugu horeyda ilaahay baa mahadda iska leh ilaahay baa mahadda iska leh mahaddaas Alle u sugnaatay intaas kadib halkaan waxaan maanta u nimid nabadoon la caleema saarayo oo la yiraahdo maxamed cabdi badane horeyaa loo duubay laakiin ugu dambaysta maanta in murashadoo dhan isugu yimaado karan loo dhan isugu yimaado raalli iga ahaada karan loo dhan isugu yimaado oo meeshaas lagu caleema saaro ayaa lagu ballamay
waana la isugu yimid intaasaan meesha u nimid waa anugu waa soo dhawayhaynaa maxamed cabdi badane waa nimaan naqaano waxaa la yidhi xigaalo waa isxoola taqaanaa maxamed waxaan ku naqaan nin aqiyaara oo miisaan badan oo aqoon-yahana oo aad iyo aad u qaymo badan ayaan ku naqaanaa beesha cabdalla sabdi ayaa soo xulatay sidaas ayaan annaguna u ayidaynaa u soo dhawayhaynaa aad iyo aaday u mahadsan yihiin ninka la keenay waxaa la rabaa nin lagu qanacsan yahay inuu yahay ninkaas aad iyo aadaan ugu qanacsanna waxaan kaloon ka tagoon aad iyo aad ugu hambalyayhaynaa nimanka gogoshaan quruxda badan noo dhigo nagu soo dhoweeyey ayaguna waa mahadsan yihiin nabadoonku waa mahadsan yahay waa soo dhawayhaynaa waa u hambalyayhaynaa maxamed cabdi badane waa ilka guduud xasan iyo nimanka la yidhaahdo maxamed yar horow u sheega cali shanle ayadaasaan qaadaynaa sidaasaan u hambalyayhaynaa walaalkay aad iyo aad u mahadsan yahay waa nimaan ognahay inuu tolka hoggaami karo nabadoonka mar haddii la duubo la yidhaha waa nabadoon qabiil ah haddii la yidhaha ummadda dhammow nabadoon u yahay hal qabiil nabadoon uma ahan waa nabadoon soomaaliyeed waa nabadoon lagu kalsoon yahay waa nabadoon aan wada naqaano waa nin aqiyaara aad iyo aaday u mahadsantihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu suldaan cabdulaahi xaashi dhaberi ayaa xusay inay uga hormartay beesha cabdalle beeshiisa islamarkaana ay tahay arrin ku dayasho mudan inay saldhig iyo marjac loo noqda ay beesha cabdalle sabdi ka dhigtaan ku dhaqanka shareecada islaamka cabdalle sabdi oo gogoshaan quruxda badan dhigtay aad iyo aad iyo aaday u mahadsan yihiin soo dhowaynta quruxda badan oo naloo sameeyey oo qiimaha iyo qaayaha leh shareecada islaamka in lagu dhaqmaaho waa wax waajib oo inta islaama saaran waa soo dhoweynay in shareecada islaamka lagu dhaqmo walaalahayna waxay dhaheen maxamed yar iyo absuge waxay go'aansadeen inay shareecada islaamka ku dhaqmaan waa idinla qaadanay shareecada islaamka waa waajib in lagu dhaqmo ayadaa nolol leh ayadaa nabadgelyo leh ayadaa qiimo leh waa soo dhoweynay waa mahadsantihiin diyaaraan u nahay shareecada islaamka in laydinkula dhaqmo waa wax qiimo leh ninkii ku yidhaha walaalkaa inta gogol dhiga shareecada islaamka igula dhaqan aad iyo aad iyo aad uu sharaf leeyahay waa mahadsantihiin karallaha meesha joogana oo markhaatigaana waa rajaynaynaa inay shareecada islaamka dhinacooda ka qaataan aad iyo aaday u mahadsan yihiin duqa labada beelood duubatana waa mahadsan yahay nin akhyaar oo mas-uul oo la yaqaano odayaashii dhaqanka karan loo soo jireenkaayo shaqaynayo u ahay oo voluntariga ku shaqaynayay in hadda la duubo laba beelood duubataana iyaduna waa wax qiimo leh waa ku soo dhowaynaynaa waana ku mahadsan yahay inuu shareecada islaamka dhaqanka uga dhigo saldhig aad iyo aad ugu mahadsan yahay waana ku taageersannahay soo dhowaada waa ka mahad celinaynaa si qiimaha loo sharafta leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadoon guure qirashaq culusow ayaa sheegay inay tahay markii ugu horreysay ee beesha isku mar ay ku dhawaaqdo nabadoon iyo sidoo kale iswaafajinta dhaqanka iyo diinta islaamka ka soo qaybgalayaasha aad iyo aad u fara badan oo halkan iiga muuqda qof waliba mansabka uu ku fadhiyo kursiga uu kula fadhiyo ayaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wiil iyo gabar adeer iyo aboowe iyo abkow iyo nabadoon intaba salaantaas iga guddooma war kale beriga maba jiraba soomaalidu waxay tidhaahaa waa yahay maana wax kale ima dhin haddii maxamed yaryo ilka guduud yidhaheen ninkaasaa noo nabadoona maxamed annaga inaan maya dhahna ama kaba hor nimaado maba dhici kartaba waa yahay le waa warkeennu annagu maanta warkeennu waa yahay iyo waa aqbalna waay waxaaba aad igugu sii muhiimsan in ilaahay kuma daraaday cabdalle sabdiyaal lagu dhaqaa dhaqanka iyo shareecada islaamka maanta horseed waaye mursado kaloo sheegaa ma arag ama karanle kaloo sheegaa ma arkin nabadoon guude qabiil tirsahana anugu maba arkin maanta waxaa aad iyo aad igugu muhiima in sabdi nabadoon leh oo nabadoon guudow ninkaasu maanta cabdalle hadda nabadoon sabdi waay sabdiga kaleoo ka hooseeya nabadoon guud anugu kuma arkin waxa kalena waa ku xiska doonaan nabadoonkana waa soo dhoweeyahaa
inta fadhisana ajir iyo xasanaad Allah siiyo inta shirkan soo abaabusana ajir iyo xasanaad Allah siiyo tawfiiqdana Allah na waafajiyo garyaqaan macalin gacmi ayaa ka dalbaday walaalaha Cabdulla Sabdi garsoor caadil ah iyo diinta islaamka inay isku dhaqaan isagoo xuseen inay uga fadhiyaan inay muujiyaan kana run sheegaan ku dhaqanka shariicada islaamka isla markaana uu ka noqdo marqaati goobjoog ah adduun iyo aakhiro kuna camal falaan wuxuuna ka codsaday inta ka dhiman inay si degdeg u dhammaystiraan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamka bacdi ilaahay islaam naga dhigay ayaa mahadle meeshaan cinwaanka noogu yaalna waa cinwaan aad u sharaf badan dhaqan iyo islaam la mideeyo wax weyn waaye laakiin waxuu rabaa in laga run sheego inta la yidhaahdaa laga tegi jiray waxaan rabaa waxaan ku boorinaa nimanka cinwaankaa noo soo dejiyo walaalaheenoo Cabdulla Sabdi labada jifay noo sheegeen inay ka run sheegaan maxay ahaaday iswaafajinta islaamka iyo dhaqanka islaamku awalan waxa uu ilaaliyo waa dhaqanka waxa uu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu dacwada waday markuu tawxiidka gudbiyo waxa ku xaga waxay ahaaday waxuu ilaali jiray qoom dhan hadday soo islaamaan kama bedeli jirin ninkii dhaqanka u ahay taas waxay muujinaysaa dhaqanku inuu yahay asal waxaa la rabaa marka dhaqanka markii islaamka dadku qaataan waxa lagu ayidaa waa dhaqanku marka iyo islaamku ma kala maarmaan dadku hadday dad muslima yihiin dhaqanka islaamku way isku xiran yihiin qofku hadduusan dhaqan lahayn waa qof iska dhuma waa qof iska habawsan hadduusan islaam qaadana waaba ka sii xun marka horta waxaan boorinaa oon aad u soo dhoweynaa in laga run sheego laguna dhaqmo lana adkeeyo arrintaas dadka kalena waxaan faraa oon ku boorinaa iyagana inay uga daysadaan annaga nooma furna wax kale martida timid haddaan nahay oo nalagu soo dhoweeyey inaan markhaati ka naqanno una mahad celinno beesha oo arrintaas isku soo qaaday kana dhabaysay inaan u mahad celinno markhaatina aan ka naqannaa noo furan waa ka nahay markhaati inteenna meesha joogta maantay inay yidhaheen dhaqanka iyo waxaan iswaafajinnay waxaana duq u doorannay maxamed cabdi waa la soo dhowaynaynaa waana ku ammaanaynaa waan uga mahad celinnaa marka inteenna waxaana saaran timiday waxay ahayd intaas waa ku ammaanaynaa maxamed cabdi inay duq labadii jifay noo sheegeen ou duq u yahay soomaalina duq u yahay murusada duq u yahay karala duq u yahay waa ku soo dhowaynaynaa waxaan leenahay inta kale marka oo ka dhiman wax yaraa dhimane intaasna in la doono ha ku dadaalaano ilaahayna hayse soo waafajiyo kitaabka ilaahay inaan wada qaadannana ilaahay ha nugu duwo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Dalka
tahay doontaan maanta fuushana ninka kaa guleelaa iyo ninka kula dalxiisa nin dara dalka joogayaa tahay aadaadoo basaare hadba kugu diidi meeda guura berigee duqaa la daarahayo duqaa la daarahayo kugu diidi meeda guura 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 duqaa la daarahayo alla jama sawaabiyo alla sii magaarsiiyo amuurdani hadday doontaa qabdheer allaha saaro oo hasoo abshaajaayira weera fursadaha meesha le macaan waa u joogyaa magagna waa u maqan yahay fursadaha meesha le macaan waa u joogyaa magagna waa u maqan yahay magaciisa nimau dheelyahaa madarku qaarooba koweel markada leeyahana meel nabare maa wada joogsi maagtii wada maharsi waadii damaqaanaantiga sii diraaga ma maqaaroon haddaad magan lehay meel xuna lagu mardiyaa
dhammaan waxgaradka ururada bulshada sida haweenka iyo dhalinyarada bahda saxaafadda maamulka hoteelka dhammaan intaasoo isku duuban waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaan kadib waxaa sharaf ii ah nabadoon maxamed cabdi duubkiisa iyo caleemasaarkiisa waxaa iiga aadan inaan ka idhaahdo sharaf ayay ii tahay intaas kadib ilaahay baa mahadsan oo dad islaama naga dhigay ilaahay baa mahadsan oo isugu kayna keena innagoo danahayna samaysanayna halkaas mahad alle kadib beeshii gogoshaan soo agaasintay ee sidaan quruxda badanna isugu soo aadisay ayaa mahadsan mahad alle kadib maxamed cabdi badana waan soo dhowaynaynaa nin odayahoo aan naqaan waaye nin aad iyo aad ahlu sharaf u ah waaye wax badan aan soo dhowaynaynaa waxaan leenahay maxamedow soo dhowow dadku waa dadkaagii halka ku duubay iyo halka maqan oo duurka jira dhammaantood haddaad mambarka odayga soo fuusho dhammaantood adigaa oday u ah waxaa la yidhaha hadda ka hor qolaa inyiisu timidaa saan oo kale mugay u soo fadhiisteen ee iscajab geliyeen markaasay shirbeen waxay dhaheen maanta ninkii maqan waxay dhaheen maanta ninkii maqan amba waa nin safar jira amba waa ilmo amba waa nin indhahla bis wax kale oo maanta maqan uma jiraan ninkaan iman waa ilmo amba waa indhool meesha leesugu tegay arfax cabdiyaa la yidhaha arfax cabdi ninkaan iman waa ilmo amba waa indhool arfax cabdi ninkaan iman waa ilmo amba waa indhool waxaan aniga marka aan isleeyahay 3 beriga ninkii maqan amba mashquul shaqo ku maqan yahay amba safar dibadda ah ku maqan yahay 3 maanta kala ma maqna ilaahay baa ku mahadsan maxamed cabdiyow soo dhowow dadku waa dadkaagii berigii siyaad barre heesihii la qaadi jiraa waxaa ka mid ahayd waa dadkaagii daqonyahow waa dalkaagii dabaalyahow waa digniine dadka soo raac marka waxaa lagaa rabaa dadkan halka fadhiya iyo halka maqan dhammaantood adaa nabadoon u ah aad iyo aad ayaan kuu soo dhowaynaynaa aad iyo aad ayaanna kuula shaqay doonaa naftu intay nagu jirto aad iyo aad ayaan ku ayidsannahay odaynimadaadaan aqoonsannahay soo dhowow soo dhowow soo dhowow gacmo furanku soo dhowow inta ka soo qayb gashana waan u mahad celinaynaa muxuu ahaa inta ka soo qayb gashana waan u mahad celinaynaa warku rag badan oo ka dhaxeeya inaan ku sii daaho ma rabo aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin markaan asiga u noqdo maxamed u noqdo nabadoonka cusub marka aan u noqdo doortaayee daadaal maxamedow waa lagu doortaayee daadaal dadkayaa diinta dadkayaa dantaaniisu goob waa lagu doortaayee daadaal dadkayaa dantaaniisu goob waa lagu doortaaye aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin maxamed cabdi badanana waa soo dhowaynaynaa naftu intay nala jirtana waa kula shaqay doonaa aad iyo aad u mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadoon siciid kuulow oo ah yaraanka beesha cabdalla sabde ayaa ku ammaanay beesha doorashada ay doorteen nabadoon maxamed cabdi badane iyo iswaafajinta dhaqanka iyo shareecada islaamka wuxuuna dhawaq dheer ku yidhi waa arrin ku dayasho mudan tallaabada ee qaada beesha cabdalla sabde oo ka mid a beelweynta karanle ugu dambeynta wuxuu caddeeyey in uu taageerayo islamarkaana la shaqayn doono nabadoon maxamed cabdi badane markhaatina uu ka yahay doorashada beesha cabdalle ee ku dhaqanka shareecada islaamka oo ah tallaabo ay beesha hore u qaaday islamarkaana ku dayasha mudan allah mahadsan subxaanahu wa tacaala isu keenay annagoo dad ehela qaraabaa oo muslima ah awooddeenna iyo itaalkeenna aqligeenna isugu imaan asigaa noo oggolaaday allah mahadsan subxaanahu wa tacaala
bacdallaahi waxaa mahadsan oo sharaf mudan oo ammaan mudan qoyska dhiga gogoshaan iyo xafladdan qiimaha badanne oo dhinac walba ka dhammaystiran ayagoo ku dhisaya tiir ka mida tiirarka dhaqanka oo loo baahan yahay loona qabo baahi weyn aadaan ugu mahad celinaynaa ayagane waxaa kaloo mahadsan ka soo qaybgalayaasha dhammaan sidii odayaasha dhaqanka culamaa udiinka aqoon-yahanka dhallinyarada gabdhaha saxaafadda barbaarta gaashaaman dhammaan inta ka soo qayb gashana waxaan leenahay waa mahadsantihiin wakhtiga aadna siiseen iyo wakhtiga aad ku timideen aadaan kaga mahad celinaynaa dhammaantiin intaas markaan ka gudbo gogoshu waa gogol lagu dhisaya dhaqan ka mida dhaqamada beesha karanle hawiye oo ay dhisaydo beesha karanle haddii la fiiriyo beelaha beesha ugu maaragtay magaca iyo mugga weyna ah oo ah dhabarka isku xidhaha beesha karanle dhabarka qofku haddii laga kala jaro ma noolaa karo dhaawac male laakiin qofka haddii gacan la jaro waa noolaa kartaa haddii lug la jaro waa noolaa kartaa laakiin hadday dhabarka laga kala jaro ma noolaa karo qofku beesha gogoshaan dhigto oo dhisaysa oo noo soo caleema saarto oo noo soo gudbisa odaga dhaqan waa dhabarka isku xidhaha beelweynta karanle waa ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galo gogoshaan nuucaana oo loo soo agaasimo sidaan waxaan ogahay oo aanan ahayn been iyo wax laysu sheegayo in lagu soo bixiyey maskax iyo maal iyo wadahadal meel dheer laga soo agaasimo muddo dheer lagu soo jiray in lagu keenay waxaan leenahay maalkaad ku bixiseen iyo maskaxdaad ku bixiseen allah idin barakeeyo markaan intaas ka soo gudbo nabadoonka ay keeneen beesha labada beelood oo ka mida beelweynta cabdalle sabdi maxamed cabdi badane nabadoon maxamed cabdi badane waxaan idin leeyahay shir baa meesha la keenay haddaatay oo naloo bilaabay moogtahay marka waa in lagu daraa lagama aali karo marka waxaan idin leeyahay cabdallow suldaan saqiyahoon soorta bakhiilinaa sidiinaan leenaha maanta cabdallow waxaan leeyahay suldaan saqiya oon soorta bakhiilinaa sidiin horta sidaas waa idin leenaha waa markhaatiyaan idinka furaynaa waxaan idin leenahoo kale suldaan aqligu saacidoon hadalka seeginaa sidiin oo nin war lagu hada maahan nin war ka taga maahan nin waxgarada waaye waxaan idin leenahay oon ku darayaa midda iigu darana suldaan siyaasi suud madow sirsiro dooninaa sidiin suldaan siyaasi suud madow sirsiro dooninaa sidiin haddii siyaasigu dhaqanka uu la heshiiyo ninka siyaasiga odaga dhaqanka hadda uu la heshiiyo waxuu mas-uulka ka ahay waa dhumayaan ninka siyaasiga ah boorsadiisa uu sitaa waxaan ogahay inuusan nin siyaasi sirsiro doona ahayn aaduu u mahadsan yahay nabadoonka guddoomiye caanaboore ha iga raalli ahaado haddoo meelaha iga maqlayo siyaasiyiinta uu ka mid yahay aadaad u mahadsantihiin haddaan nahay anigoo ku hadlayo markaan intaa ka soo gudbo haddaan ahay odayaasha dhaqanka beesha abbakar khaasatan yaraanka beelweynta karanle anigoo ku hadlaya afkooda waxaan soo dhowaynay oon aqbalay nabadoon maxamed cabdi badane nabadoon soo dhowow waxaa laguu dhiibay oo maanta maaragtay qoorta laguu geliyey mas-uuliyad khatar ah oo qaadisteedu aayadihii qur-aanka wadaadka uu ku furfurayaa ka sheekaynayey mas-uuliyadda ay leedahay innaa caralna alamaanata cala alsamaawaati waalardi fa abayna an yaxmilnahaa wa ashfaqna minhaa wa xamala hal insaanu innahu kaana daluuman jahuulan ilaahayaa ku yidhi mas-uuliyadda cirkaa diiday
dhulkaa diiday waxaa qaada insaanali bini aadana qaada waa wax weyn waxaan leenahay oon kugu duceeyaynaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka beesha karle soo dhowaaw allah kula garab galo waxaa kaloo la hadlayaa beesha soo doorato maanta meesha keenta waa doorannay meeshaan geynay waa ka kala tagnay ka yeeli mayno waardiyaad ka qabanaysaan waxau raboon alla garab taagaysaan waa garab istaagaysiin waxaad ka celinaysiin qodxaha qodax biyoodka oo meel budaya ka ilaaliya garab istaaga wax dhaafka la garab istaaga warka la garab istaaga dhaqanka ma aha waxa lagu doorto inuu asagu wax walba xalli karo laakiin waa tawfiiq waxa lagu doorto dhaqanka tawfiiq inuu noqdo lagu daysado la daba kaca lagu doortaa ee inuu asagu wax walba soo xalli karo laguma doorto wax dhaaf idinkaa la idinka rabaa war idinkaa la idinka rabaa xoog idinkaa la idinka rabaa wax walba idinka idin jiraan laasigase waa tali wuxuu idin yahay hoggaanuu noo yahay waa dhaqan soomaaliyeed waa dhaqan karanle waa dhaqan oda sabdi waa dhaqan maaragtay ciddii soo dooratay intaasoo isugu jiraa soo dhowaa baan leeyahay nabadoon maxamed cabdi badane aad iyo aad u mahadsantihiin waana soo dhowaynay waana qaadanay waana la shaqay doonaa salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadoon cismaan xaaji cali kulmiye oo ku hadlaya magaca beesha baadicadde ayaa ku ammaanay beesha cabdalla sabdi inay dhammaan bulshada soomaaliyeed u horseeda ku dhaqanka shareecada islaamka meesha fadhiso oo walaal oo iskugu timid horta xushmada ay leeyihiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan idinku boorinayaa horta inta beeshaas oo dhisatay nabadoonka waxaan ka rajaynaa in ay mataqaanaa ay ixtiraam ay leeyihiin gooni ah waayo sababtoo ah waxaa hadda meesha ka caddaatay nin walba oo muslin ah inuu shareecada islaamka ku dhaqmo inay boqolkiiba boqol ay fiican tahay waxaynu nagu horkaceen annagoo ku hadlaayo magaca gugundhabo gaar ahaan beesha baadacadda odayaashooda ku hadlaayo waxaan hadda mataqaanaa alxamdulilaahi aan ku boorinayaa inay inta kaleento oo muslimiinta ay raacaan inta kulli inta soomaaliya oo dhan ay raacaan meesha hadafka loo yimid waxa waayo nabadoonkana khayr allaha siiyo hortiisa khayr allaha dhigo ummadda dhan nin isku soo jiida allaha ka dhigo wixii sharcina allaha ka qabto intaasoo ducaana waa u marayaa anigoo ah magacaas waxaan aad aan ugu faraxsanahay nabadoonka iyo bahda meesha iskugu timid in ay tahay heshiiskooda ama hadalkooda ama hadafkooda uu yahay in lagu dhaqmo shareecada islaamka alxamdulillaah taasaa boqolkiiba boqol mahad mudan intaasaan ku soo gabagabaynaa hadalkayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيانا لنا هاي gudoomiyaha dhalinyarada beesha mursada doctor ismaaciil ileyki ayaa codsaday in dhalinyarada beesha ay tahay midda ugu baahiyaha badan ku dhaqanka shareecada islaamka ayna la garab taagan tahay xoog iyo xeelo wuxuu uga baahday gudoomiyaha cabdi badane sidii horena dhalinyarada ay ugu horeysay intii ku dhibanaad dhalinyarada qaybaha kale bulshada dumarka kamirmaanada waa salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aad ugu faraxsanahay haddaan nahay balweynta dhalinyarada balweynta mursade inaan ka soo qayb galno maanta xafladda ay maanta walaalaheen khaasatan aniga abtiyaashay cabdalla maxamed ee maanta dhigeen oo ah inay maxaa la dhahaa ku taakiidino kuna adkeenno waxaa dhaqanka beesha mursade iyo nabadoonnada beesha mursade ay qaateen oo ah inaan taakiidino ayagana aan ku raacno haddaanan dhalinyarada beesha mursade wixii dhaqanku iyo nabadoonnada mursade ay qaateen annaguna waa qaadnay waana ka mahad celinaa goosha qiimaha badan sharafta leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadoon iimaan axmed lugey oo ku hadlaya magaca beelweynta abgaal cismaan ayaa uga mahad celiyay doorashada iyo ku dhaqanka shareecada islaamka islamarkaana si ay isaga nabad galaan dadka intiisa kalena ay uga nabad helaan intii ii yeertay ugu casuuntay waxaan halkan ku taageerayaa abtigay nabadoon maxamed cabdi reer abtigay oo dhan say u dhan yihiin 3 iyo 9 sabdiya foor culus
gaar ahaan nimanka la yidhaha cabdalle sabdi waxaan la qaadanayaa nabadoonka shareecada islaamka lagu doobtay oo ugu talagaleen inuu dhiiggooduna ku nabadgalo dhiigga islaamna ka nabadgalo xilku waa culus yahay ilaahay xilka ha la qaado allah ku nabad yeelo waa culaab inteeda la eg laakiin tol la qaado uu leeyahay ilaahay tolkiisa ha ku garab galo asigana allah ku dhowro wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadoon muxudiin suuxaay ayaa xusay inuu ku faraxsan yahay ayna tahay markii ugu horreysay ee uu arko beel iska fogeysay inay diyo kala qaataan taa beddelkeedana qaadatay inay isku xukumaan shareecada islaamka ugaas imaam malaaq iyo dumarkaba waa salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saacaddan aan taaganahay aadaan horta u caafimaad qabaa laakiin markii lay sheegay anoo jiifa badanaa maanta la duubayaa waa raystay ilaahay ha kula garab galo weli sooma roogsan meel la leeyahay diinta islaamka ha lagu dhaqa nabadoon ha u ahaado waa maalintii igu horrayda horta nabadoonow diinta inaad ximbaarto ood nagu hoggaamido allah kugu dugo waxaan kaloo intaas ku darayaa majaba sabdi cabdallah rati ka soo hoos qaaday inaad diinta gaarsiido badane inaad diinta gaarsiido diinta ku dhaqdo maanta ratigii hoosteedaan naallaa waa inaad ratiga naga soo hoos qaadda adna aad iska hoos qaadda adiga ruuxaada waa taallaa haddaadan isxurayn cid kaa hor imaan karta ama kuga hor joogso kara male garbana annagaa ku siinayna nabadoonnimadaada garabkaadaan taagannahay magaca aan maama ku taaganahay karanlaan ku taaganahay mursada kuma taagna anugu mursada ugaasoo leeyahay anu ugaaska karanlaanahay iimeeyaa laygu soo duubay nin iga weyn oo ugaasnimana iga weyn dhalashana iga weyn ay soo duubay iyo raggiisa saas ogaada oo yaan uqdadu idingelina maanta ugaas kale la qoray aadaysasdhiina manaasibka maan uga lahayaan taaganahay ugaaska kale waa naga xanuunsan yahay u duceeyo ilaahay inuu caafimaad siiyo horta faatixada u mara in ilaahay ugaaska caafimaad noo siiyo waxaad yeelaydiin calooshiinnu ha isu furraato badane laba ma sido labana nabadoon u maahan waxaan meeshaan ka arkaa laba beeloodoo sheegtee 10 beelood nin ka bixi kara waayo nabadoonnimadooda asagana waa inaad faatixada u martiin nabadoonnimadiisu haddaadan garab gelina intiina maha fadhido 3 iyo 9 sabti iyo farculus karan leh haddaadan garab gelina meel gaari may nabadoonnimadu maantay nabadoonnimadiisa meesha hasha nooga soo qaaday haddaan nahay majaba sabti waa inaan ka soo qaadnaa badanow garabkaadaan degganahay dhinacaadaan taagannahay anaa ku hadlaaya afkooda majaba sabdi meeshaad u dirtana waa aadayaan warsow aadi maydin meeshau idin diro wuxuu idin yidhaa ma yeelaydiin majaba sabdiyaan la hadlaa cid kale la hadli maayo hadhow gafuurka in la isku tuugo lama rabo waa nabadoonkii majaba sabdi ilaahayaana ka dhigay saadoo hal hoosteediyaal rati doobaaye oo kaasoo hoos qaaday annagu hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel malin xillibi iyo daguurana ha nagu qaataano iyo habanaceeno maadaama aan kana yarnahay gabay ma aqaanoo gabay tiri maa laakiin waa isoo burqaa marka inaan dhumiyaan diidaa gabagaas aan deelqaaf yeesho ilaahay kor ha ka dhigo ilaahay kor ha ka dhigo ilaahay waxa la qabto ilaahay waxa la qabto iibaankana allah ku sugo annagana iibaanka allah nagu sugo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu doqa beesha cabdalle nabadoon maxamed cabdi badane oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa madasha ka jeediyey ayaa mahadcelin iyo soo dhoweyn ka sokow ballan qaaday inuu bulshada doorato cadaalad iyo diinta islaamka ku dhaqi doono wuxuuna ku dheerayaa ka sheekaynta xilka culus ee guudka loo suray waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بعد السلام
waxaa la ii doortay hawl culus xil runtii waa dhib badan yahay sida lagu yaqaano waxaase la yidhi hoggaamintu ma laha hoggaamiyaha waxaase iska leh shacab ilaashada oo ayagu ka fikira hagaajinteeda iyo wanaajinteeda shacabkii saas ahaay oo qaraabadayda ahaay ee maanta ku tashaday in lagu hoggaamiyo shareecada islaamka waa u mahad celinayaa wax kale ha nagula hoggaamiyo hadday dhahaana kamaba yeelan anugu sababtoo ah bulsha waxay ka dhisantaa shareecada islaamka sharci islaam meelaan lagu dhiqin khayr iyo wanaag kama yimaado israac kama yimaado horumar kama yimaado sidaa awgeed sida ay u dalbadeen in lagu dhaqo diinta islaamka aniguna aan raalli uga ahay ayaan ku hoggaami doonaa haddii alla yidhaaho waxaa kaloo idiin sheegaa dhaqanku waa dhib badan yahay in badanna waa ka soo shaqeeyey waxaa jirta dadku markay dhaqan yihiin kama fikiraan jifo iyo beel hoose kama fikiraan waxay ka fikiraan dhaqan ummadda muslimka ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ummaddu waxay ummad ku tahay in lagu hoggaamiyo wanaag in wixii dhibayana laga celiyo wixii u roona la raaco sidaa awgeed waa la daahay qadadiyaa laga daahay wax badanna waa la fadhiya ma raba inaan hadal dheer gala hadda was arki doonnaa dhammaan koox iyo qaybaan isku arki doonnaa dhammaan qaraabada waxaan leeyahay wax alla wixii wanaaga oo laygaga baahan yahay oo aan awoodo ilaahay ha ila garab galay waa qabanayaan dadka walaalaha nooc walbay leeyihiin waxaan jecelahay inaan gacmo furan ku soo dhaweeyo wax alla wixii maqan oo qaraabo ah ama Soomaaliyeed ama hawiye ama mursade ama annaga xataa waxaan jecelahay inaan si wanaagsan oo sharaf leh aan u dhex galo hawshooda oo aan mar walba noqdo mid ka xiriiriyo ummadda ilaahayna iga dhigo sababtoo ah waxa weeye waxaan alla qadarin ma qadirmaan wax walba la qabanayana ana qabanaya wax sax ma ah waxa sax ah ilaahay hadduu aqbalo waxaan alla aqbalin lama qaban karo waxaan rabaa marka dhammaan saxaafadda iyo dadka ka soo qayb gala meesha inay ugu ogaadaan dadkaygana ay ku ogaadaan maanta waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa waxyaabaha hadda dhibaatada Soomaalida ka jirta waxa ugu horeeya cadaalad xumo cadligu mar hadduu dhumo oo cadaaladu dhunto waxa weeye ma hagaagayso ummadaas markii hoos loo sii dego dadka aan ka dhalanay mursada sidoo kale weeye cadaalad darradaas ay qabaan cadaaladuna sharciga islaamkana la raaco dadkuna ay ka run sheegaan ilaahay dartiisna ay uga hadlaan haddii aysan uga shaqayn ilaahay dartii cadaaladdu imaamayso cadaalad darrada Soomaalida iyo qaraabada iyo qof walbaba dhex gashayna waxaan rajaynaa haddii alla yidhaa inaan ka saarno oo aan dadka midnimo iyo horumar iyo wanaag diinta islaamka aan u horseedno haddii alla yidhaa waa mahadsantihiin wixii la talinayo wixii wax qabadana waa si gaaran uga tasha doonnaa haddii alla yidhaahdo intaasaan ku soo gebagabaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Dalka
intaad maanta fuushana ninka kaa kuleelaa iyo ninka kula dalxiisa nin dara dalka joogayaa tahay aadaado basaare hadba kugu diini meeda guura berigee duqaa la daarahayo duqaa la daarahayo kugu diini meeda guura kugu diini meeda guura duqaa la daarahayo 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 alla kama sawaabiyo allatii magaartiiyo amuurdani hadday docontaa qabdheer allaha saaro oo hasoo abshaajaayiraha weera fursadaha meesha le macaan waa u joogyaa magagna waa u maqan yahay fursadaha meesha le macaan waa u joogyaa magagna waa u maqan yahay magaciisa nimau dheelyahaa madar buqaarooba doweel markada leeyahana meel bare maa wada joogsi maagtii wada maharsi waadii damaqaanaantiga sii diraaga ma maqaarood haddaad magan lehay meel xuna lagu mardiyaa أولي مدمدوني مموضة حتى قربت المسؤولة لما قعابي مدمدوني مموضة مسؤولة لما قعابي مدمدوني مموضة مسؤولة لما قعابي
marka gabagabada inaan u dhiibo ducadii aan noo dhiman ducadana dadka iskala gooniya waxaan rabaa inaan ducada u dhiibo curad iyo cirib sidii loogu dhashay waxaana ka bilaabaa curadkii ay la taagan maanta بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله التوفيق لنا وافجيو توفيق لنا وافجيو نبضون كان دوبني قول هقول استو هقول استو هقول استو هقول استو سلكيسة يدتك يا أمة الإسلام كصومالي ذا لما أنت تركيه وقانش الله كديو الله كديو إلى أن توقني يقول استو الله كديو شرط الله حجاب غير الله فرق الدنيا غير تامة أنا أقول دعيني ذاتك أنا مدنا بارها الله كديو أسوأ أنا واقعي قف الله قفه بارها الله كديو إلى أمة كم دبوا إسلام نمد إلى كم دبوا الدنيا كي أقرب الله أكتوسي كي كل يوم الله كديو كي حتى توكلت الله كديو أبو بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم وحنا لو ويديسنا سبحانه وتعالى inuusan waqtiga iyo maaragtay wax dheefka iyo juhdiga la bixiyay uusan ugu qasaarin nabadoonka meeshaan lagu caleema saaray oo nabadoon ina muslim nabadoon Soomaaliyeed nabadoon beesha hawiye nabadoon karanla hawiye nabadoonka beesha soo magacaabatay intaasba isku sida ah waxaan ilaahay uga baryaynaa wixii loo idmaday oo loo caleema saaray mid qaada oo la dhicin oo ku ceeboobin oo ku amaanan Allah ka dhigo midaan adduunka ku ceeboobin aakhirana ku cadaab mudan Allah ka dhigo awlaadiisa iyo anfacadiisa iyo iimaankiisa Allah barakeeyo cadawgiisa Allah qabto wixii dhibaaya wixii shar Allah ka qabto hadday il tahay iyo hadday wax walba tahay ilaahay ka qabto wixii jin iyo insi shartooda Allah ka qabto ilaahay kor ha u dhigo ilaahay ha boqro إلهي وحن كبرينا دعاء أن ندعيني هي دعاء تلكيس الله أقبله دعاء تلكيس الله أقبله مراد كيس الله سأله مراد كيس الله سأله عذر كيس عافمات إلهي عافمات تام هسيو إلهي عمر كيس هداريو إلهي عبادة الصوبان هكودلو إلهي هكون عليو إلهي وحن كبرينا دينة إسلامك كي نقول جامية أو هذا دينة إسلامك هو هاي سنة لكن كنا كان وحكي ميين كي دقن كتوسية كتوسية ودد إلهي الرسول كيسو أي دقان الله نوقدقو الله بركيو وأنا ما هسيهاي إلهينا وحن كبرينا وحي مارك تكي أورك كدعوية كي أفكد دعوية الله كأقبله إلهينا هو أقبله وأنا ما هسيهاي نبضونك إلهي كرة كدقو قوليسو gogoshan ayaa miraha ka soo baxay mustaqbalka looga kaaftoomi doonaa in qof la dilo gacan ku dhiiglihii dilo uu mag bixiyo kadibna dibadda iska wareego waxaana la go'aamiyay in qofkii qof baduuqo isagana la baduuqi doono muuse maxamuud jiisu muqdisho